kadib markii webiga Shabeelle ka guray deegaano isma degmada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Shabeelle lagana soo sheegay bari la soo dhaafay in biilaan xooggan ay ka jirto ayaa maanta waxa gaaray deegaanadaasi mas'uuliin hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Shabeelle mudane Ali Cabdullaahi Xuseen Ali Gudlaawe tuulooyinka ay gaareen mas'uuliintan ayaa waxa kamid ah tuulada Bayaxaaw markii ay soo ileesteen madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Shabeelle iyo madaxdii la socotay kormeerkooda ay ku galayeen dadka iyo dunida noloshooda ku tiirsaneed biyaha webiga Shabeelle xaaladaha kala duwan oo ay ku sugan yihiin ayaa mas'uuliinta waxa uu warbixiyay baahiyaha kala duwan oo ay qabaan gudoomiyaha tuulada Bayaxaaw Nuur Aadan Axmed ilaahay ayaa wax bixiyo mid kale maamulku waxaan u sheegaynay baahidana hayso in ay tahay oonka oo biyaha la'aanta hayso waa qarkoosina habeenka sida saaki hadda loo istaagay laba jirgaan biyo kali ayaa saaki oo dhan xinkii laga helo waxayna goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Maxamed Muqtaar Ismaan Baar iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meera Makaran oo sheegay in ay dadaal weyn ugu jiraan in ay daboolaan baahiyaha kala duwan ee u qabaan shacabka ku nool deegaanadaasi wax waliba iskaashi ku imaan karaan iskaashi lagu heli karaa in baahiyaha loogu baxo sida aad arkaysiin waxa leeyahay il waxay hayso ilaalma ka dhan jalaalahayn in loo helo tuulooyinkan ceelal si ay maaragtay xaggan biyaha ay baahida biyaha ay meeshaas maaragtay uga baxdo madaxweyne ku-xigeenka Shabeelle Ali Cabdullaahi Xuseen ayaa dhankiisa sheegay in sida u dhaqsiyaha badan maamulka Shabeelle uu qaban doonaan dadkan baahiyaha kala duwan ee haysta wuxuuna baaq u jeediyay cid kasta wax ka qaban karto in ay la soo gaarto gargaar degdeg ah dadkani Shabeelle mas'uuliyiinteeda day baarlamaan tahay iyo haday golo wasiiro tahay iyo haday mas'uuliyiin madaxweyne ku-xigeen tahay iyo haday heer gobol tahay haday heer degmo tahay fadhigan ka kici doona hadii la raalli ka noqdo dadka waa in biyo dhaamis degdega marka hore ay helaan hadii la raalli ka noqdo wixii tabartayna aan uga jawaabi doonaa cid kaste dadka wax taraysana waa soo dhaweynaynaa waxay nooga baahdaana waa la qaban doonaa hadii la raalli ka noqdo deegaanada mas'uuliyiinta maanta ay booqdeen ayaa dadka ku nool hadda biyo waxay ka cabaan xinan ay ka dhex qoteen webiga Abubakar Maxamed Baadle warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xarunta dawlad goboleedka Shabeelle magaalada Jowhar.